warmadaala bacadlihiiyo dadkii ka bixiyey dadkii way gubteen hantidoodii warmadaala barxadii baakinka ahayd oo darbi ku wareejiyo baabuurta ka bixi jirtay warmadaale turiin ma hayo warwadaadnimadii xaguu geeyey warwadaadnimadii aaway wardadnimadii iyo abtirsinadii iyo wixii aan farxadii aan u qabna aaway warmadaalow gadaal noqo allihii ku abuurtay oo subxaanahu wa tacaala ka baq waxaan aad iyo aad uga cabanaynaa duqa magaalada muqdisho ibraahim mudane muxuu ahaa madaale oo shacabka muqdisho ama degmada xamarweyne ku nool ay kala soo darseen ama ay xaggiisa culays nooga yimid dadkii danyarta ahaa oo dhibaatada badan ku noolaa muddada 34 sano oo dalku uu ku jiray muxuu ahaa kala dambeyn la'aanta iyo walaaca inta ka bacdigeed dadkii danyarta ahaa oo xamarweyne ku noolaa ayadoo aan loo fiirin dhibka dalka ka jira iyo dhaqaale xumada iyo colaadaha iyo amni darrada dalka ka jirta ayuu ma garanaysaa wuxuu ku sameeyay wax la yiraahdo takrifal aan ku dhaahnayn ama ay ku baaskaraysnayn sharciyad isagoo yiri dhulkii muxuu ahaa dadku ay lahaayeen oo sharciga ahaa oo dawladihii dalka soo maray ay bixiyeen dokumentiyo kala bedelan wax la yiraahdo dokumenti oo aan aqoonsanahay ma jiro waxaana kala noqday aqoonsigii ay ku deganaayeen dhulka sidaas aawadeed waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo baneeyaa arintaas oo ku noqotay naxdin iyo anfariir iyo filawaa iyo muxuu ahaa ma garanaysaa turin la'aan iyo ma garanaysaa arintii laga filayay arin aan ahayn arintaas ayada waxaan codsanaynaa dawladda federaalka muxuu ahaa inta aqliga u saaxiibka inta aan hambada Soomaalinimadu ka dhamaan inta aan turinta shacabku ka dhamaan inta madaxweynaha dalku ugu sareeyo arintaas ayada xildhibaanada qaranka golaha wasiirada salaadiinta dhaqanka culamaa u diinka inta aan isleenahay diirnaha ayaa ku haray ayaa waxaan ka codsanaynaa inay arintaas wax ka qabtaan kalana hadlaan duqa magaalada ixtiraam darrada turin la'aanta ka fiirsi la'aanta wax la qaadan kara maaha inagoo awal ka tabanaynay dhulkii naga gubtay in si aan turin la'aana ama aan nala ku ixtiraamin dad ganacsato ah oo waxa ay ka maagan yihiin aan fahamsanayn loo gacan galiyay intii hartayna waxa la yiri in ay gacanteena uu soo galo ayaan doonaynaa dhulka inta ka hartay inta dadka laga jabinayana waan ognahay inay banaanaanayn waxaan leenahay inta qaran dalkan soo martay haday tahay tii hanti wadaagga ahayd haday tahay xukuumadihii ka horeeyay haday tahay maamuladii ka dambeeyay oo ku meel gaarka ahaa haday tahay muxuu ahaa waqtigii qalalaasaha siyaasadeed dalka ka jireen wax aan nagu dhicin ayaan nagu dhacay waxaan leenahay gudoomiye waxa ku sugaya maalin maalmaha kamida oo ay ku sugayso wa ummihi wa abiihi wa saahibati wa banihi maalin adiga iyo amalkaaga xibinoma xibin ay inkirayso xibin ay dafirayso aan wiil iyo saaxiib iyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare midna ku difaacayn adiga amalkaaga ay tahay ka fiirso inaad nabaabiiso ka fiirso in aad turin daran ugu samayso dadkaagii ayaan nahay waxaan nahay dadkii aad madaxweynaha u ahayd waxaan nahay dadkii bahda gobolka Banaadir waxaan nahay dadkii adiga arxibka ka filayay waxaan nahay dadkii ay ahayd inaad u dhimrido
waxaan nahay dadkii caa'iladaada hoose ahaa kama tihid dal kale kama tihid gobol kale muqdisho ayaad gobernatoore ka tahay ama duq magaalo ka tahay rabbiga adiga ku abuurtay inta ka baqdo arinta aad xamarweyne ka samaysay dadka aan garaadkoodu wadaniyada iyo Soomaalinimada iyo muslimnimada ku salaysnayn oo nagala taliday ha nagala talin ilaahan ku abuurtay ka baq ilaaha ku abuurtay ka baq ilaaha ku abuurtay ka baq madaxda qaranka waxaan ka codsanaynaa iyo golaha baarlamaanka iyo salaadiinta dhaqanka ee bahda gobolka Banaadir arintaas inay wax ka qabtaan madaala inay naga qabtaan waa wax ka filawa aanan waliga ka sugayn nin muxuu ahaa bahda gobolka Banaadir ka tirsan inuu nagu sameeyo waa wixii aan islahayn dawladii hanti wadaaga ahaa nooga arxib daran waa wax aynaan ka filayn 83 ayaan degnay hadda nina dabaqya ka dhisanaya annaga intana la ka farmaroojiyay arin la qaada kara maahan arin aan aqbali karna maahan arintaas waxaan ka muujinaynaa cabasho qarannimo mid Soomaalinimo mid muslimnimo mid binu aadannimo intaas ayaan jeclahay inaan madaxda qaranka oo kala bedelan gaarsiiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ah Ismaan Maxamed Cawaale gudoomiyihii ganacsada degmada Xamarweyne dadka hortayda lagu karaama dareeyay lagu baabashay lagu jirdilay booliiskii aan islahayn dadka u dhimrinaya isagii ayaa wuxuu noqdayba inaan noqono muxuu ahaa boog annaga qof walba inay jirdilaan inay dib u geystaan inay handadaan war dalka mashruuciga ka taliya mahanti wadaaga ka taliya saxaafadda horta maxaa loo burinaya maxaa shacabka loo dhibaataynaya maxaa shacabka nalagu sameeynaya wax aan ka bogsanay ma waxaan la xusuusinaya dawladda hanti wadaaga ahayd ma waxaan la xusuusinaya naxariis daradii arintaas culaysay nagu tahay waxay nagu tahay waxaan la laqi karin arintaas gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka iyo inta aqliga u saaxiibka ah haka noqo gobolka Banaadir ku cadaadiya inuu ku noqdo sidaas ayaan jeclahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh